nin 90 jir ah oo ay ka muuqato jug iyo dhaawacyo culus oo loo geystay ayaa laga soo helay bartamaha Midtskogen ee degmada Elverum ee deegaanada inland ee dalka Norway. 90 jirkan ayaa lagu soo waramayaa in uu jirkiisu ka muuqday dhaawacyo aad u culus, waxa ayna boolisku sheegeen in ay ku soo wargeliyeen dad maraya hawdkaas oo lagu baxsi u aaday. Waxa ayna intaa ku dareen in ay si degdeg ah ugu gurmadeen ninkan 90 jirka ah oo hadda lagu dabiibayo isbitaalka. Booliska ayaa sheegay in ay dhacdadan u soo qabteen haweeney 30 jir ah taa oo hadda lagu hayo xabsiga. Waxa ayna intaa ku dareen jirdilka ninkan loo geystay iyo in hawdka lagu tuuray ay u dheertahay in haweeneydan 30 jirka ah lagu soo oogay dacwad kale oo ah in markii ay ninkani jirdilka u geysatay duurkana kaga soo tagtay ay u soo laabatay gurigiisa halkaasoo ay isaguna dab qabadsiisay, halkaasna uu ku baaba'ay gurigiisii iyo wax walbo agab ah oo dhex yeelay. Haweeneydan 30 jirka ah ayaa hadda waxaa lagu xukumay 4 toddobaad oo xabsi ah oo lagu baarayo kiiskan fardambiyeedka ah ee ay boolisku ku soo oogeen. Qareenka 90 jirkan oo lagu magacaabo Ovid Borg ayaa ku waramayo in hadda ninka uu qareenka u yahay ay xaaladiisu wanaagsan tahay, caafimaadkiisana uu ka soo raynayo iyadoo weli lagu dabiibayo isbitaalkii la dhigay, halkaasoo baaritaano joogto ah iyo korjoogteynba lagu hayo. Waxa uuna intaa ku daray in uu hadda maskax ahaan iyo caafimaad ahaan ka soo raynayo sidii hore, inkastoo ay ka muuqato murugada iyo ciilka uu ka qabo in gurigiisii uu basbeelay, wax walbo hanti iyo sidoo kale dukumiintiyo iyo alaabo u yeelana ay halkaa ku baaba'een. Ninkan 90 jirka ah ayaa hadda weli waxaa lagula tacaalayaa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala deegaanada inland ee dalka Norway. Haweeneydan 30 jirka ah ee xabsiga la dhigay ayaa ilaa iyo hadda diidan in ay booliska wax su'aalaha uga jawaabto. Waxa ayna boolisku sheegeen in ay kiiskan hadda baaritaan culus ay ka wadaan. Waxa ayna intaa ku dartay taliye ku-xigeenka booliska Sofia Vom in kiiskan baaritaan culus ay ku hayaan. Si taa lamidana waxa ay sheegtay marka laga soo tago jirdilka culus ee loo geystay 90 jirkan iyo in gurigiisii la gubay, ay arrintani sidoo kale ay baarayaan dhacdo kale oo ahayd in la gubay guri kale oo aan goobta uu guriga ninkan ku yiila ka fogeen maalin ka hor markii ay dhacdadani dhacday. Waxa ayna sheegtay in booliska hadda labadan dhacdo ay isku xiriirinayaan, inkastoo ay sheegtay in baaritaanku uu hordhac yahay oo aysan xaqiijin karin in labada dhacdo oo ah labada guri ee la gubay ay xiriir ka dhaxeeyo ama haweeneydan lagu wada tuumayo. Inkastoo haweeneydan 30 jirka ah lagu soo oogay dacwad ah in ay jirdil aad u culus u geystay odagan 90 jirka ah, si taa lamidana ay gurigiisa dab qabadsiisay oo ay gubtay, ku talagalna ay u samaysay arrinta. Qareenka difaacaya haweeneydan 30 jirka ah oo lagu magacaabo Frode Abek ayaa sheegay in aysan haweeneyda uu difaacayo aysan qirsaneen kiiskan iyo dembigan uu booliska ku soo oogay iyo in ay ku lug leedahay falkan lagu jirdilay ninkan odayga ah gurigiisana lagu gubay. Ayeeshee hay-adaha amniga iyo garsoorka ayaa soo bandhigi doona baaritaanada ay wadaan natiijadeeda, iyadoo lagu wado in haweeneydan la soo taago maxkamad 4 toddobaad kadib. Halka warka kuwiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdulaahi Shiine.